doorashaha afgembi maya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبادة جنالك الديوان قلالا سكتاغن هوغان كساري سياسة صوماليا ayaa keenaya cabsi iyo in ay rabshado soo cusboonaadaan mar kale. khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay, kaas oo qatar geliyay xasilooni amni iyo mid siyaasadeed ee maalmihii la soo dhaafay. xiriirku u dhaxeeyay ma ahayn mid liito. Farmaajo oo xilkii madaxtinimada hayay tan iyo 2017 iyo Roble oo xilka u magacaabay tan iyo bishii September 2020, halka uu salka ku hayo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Roble, taasoo ah bishii August 2021 markaasoo uu khilaafkani u soo muuqday shacabka. tani waxay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo saaray wareegto madaxweyne bishii August 2021 oo wareegtadaas oo ka hortagayso hay'adaha fulinta ee dawladda ku meel gaarka inay heshiisyo la saxeexdaan, kuwaas oo ka mid ah heshiisyo siyaasadeed, dhaqaale iyo amni, shirkado, ururo iyo dalal kale. inta lagu jiro marxaladda kala guurka ah ee uu dalka ku jiro, maalintii xigtay ayaa xukuumadii ku meel gaarka ee uu hogaaminayay Roble ayaa soo saartay qoraal adag oo ay ku beeninayso fikradii uu madaxweynaha soo saaray. tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgaminayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taal. ra'iisul wasaaraha ayaa inta badan ku taagnaa hoosimaadka madaxweynaha, kaasoo leh way aragnimo dheer dhinaca siyaasadda dalka. waxa uu shaqadiisa ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda 80-kii ka hor inta uunan noqon ra'iisul wasaare. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku gacan seeray go'aankii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku hakiyay awoodihiisa inta laga soo gabagabeynayo baaritaanada ku aadan eedeymaha musuqmaasuqa ee lagu soo oogay. go'aanka Farmaajo oo uu ku hakiyay shaqada ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya iyadoo oo ka dhaxeeyo khilaaf soo jiitamayay isaga iyo Roble, waxaana khilaafkan sii xumeeyay doorashadii baarlamaanka ee hakadka ku jirtay oo bilowday bishii November ee la soo dhaafay. Farmaajo iyo Roble ayaa isdhaafsaday eedeymo ku saabsan cidda mas'uulka ka ah fashilka doorashada. xiriirka u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ayaa laga diiwaangeliyay laba iska hor imaad toos ah, kaasoo ka soo horjeeda xilka qaadis iyo magacaabin xilal amni oo xasaasi ah. bishii September ee la soo dhaafay, Roble waxa uu xilka ka qaaday taliyihii hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin oo lagu tilmaamay inuu ahaa nin ay isku dhow yihiin madaxweynaha, iyadoo loo cuskaday sida uu u maareeyay baaritaanka shaqaalaha hay'adaas oo lagu waayay kiiska Ikraam Tahliil. ciidanka Soomaaliya ayaa ka mid ah hay'adaha labada dhinac ay ku muransan yihiin in ay hoos yimaadaan. marka la eego ra'iisul wasaaraha ayaa inta badan ay hoos yimaadaan. khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Roble ayaa yeeshay weji kale oo dastuuri ah, iyadoo mid walba oo go'aankiisa u saleeyay qoraal ama qodobo ka mid ah dastuurka, taasoo dhalisay muran sharci iyo mid dastuuri ah oo ka dhex dhashay siyaasadda iyo bulshada Soomaaliyeed. iyadoo lagu saleynayo arrimaha aan soo sheegnay, mid ka mid ah natiijooyinka la filayo ayaa ah in khilaafka lagu soo afjari doono labada nin midkood inuu iscasilo. iscasilaada mid ka mid ah iyada oo aan la heshiin waxay soo dadejinaysaa in la xakameeyo qalalaasaha siyaasadeed iyo kuwa dastuuriga ah ee jiro.
in uu dagaalka dhex dilaacmo ku dadaalidda rabshadaha waa ikhtiyaar lama huraan ah haddii xal nabadeed la waayo hab lagu dhameeyo khilaafkan. In lagu guuleysto dhexdhexaadnimada ay wadaan madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in ay ku qanciyaan labada dhinac in is-afgarad lagu dhameeyo xiisadda ka taagan Soomaaliya. Haddii ay dadaaladaasi ay ku guuleystaan oo labada dhinac ay ku heshiiyaan in la helo qaacido guud oo lagu xakameeyo dhibaatada, taasi waxay ka dhigan tahay in dalka laga badbaadiyo masiir aan la aqoon, taasoo ah mid ay dhammaan shacabka Soomaaliyeed rajo ay ka qabaan. In la heshiiyo ayaan ku baaqi lahaa waddanka, ummadda Soomaaliyeed, shicibka masaakiinta ah. Khilaaf uma baahna, waxay u baahan tahay nabadgelyo, caafimaad, walaaltinimo. Madaxtooyada qaylada inaan ka soo yeerto raalli kama nihin. Waxaan rabnaa in laisku tanaasulo, la heshiiyo. Haddaba say kula tahay in uu ku dhammaanayo khilaafka u dhexeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha? Waana su'aal ka dhex guuxayso dhammaan shacabka Soomaaliyeed.